السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيم على الموسيقى يوتيوب ميل البو أجوكتا يسي البو أد إيداوانيستان وحان إذن الله يهي رمضان مبارك ما أنت أفر يتوان رمضان كن أفر بقول أفرتني لح برتا أد إيداوانيستان ويوتيوب channel كأن كل يهي مع الموسيقى official channel ما أنت وحان إذن وضع تيم على الموسيقى فلوغ أنك يبحي دونه حفيز كيغا مقالة مقدشو كنا تيجي دونه إن شاء الله تعالى xaafada tabeelaha loo yaqaan masaajidku yaal ayaan maanta waxaan ku leenahay khudbadaas yaarna inaan idiin soo duubo haddii alla idmo insha allahu tacaala idinkana inaad ila socotaan khudbada intaan la gaarin ka hor ayaan waxaan doonayaa laga bilaabo xafiiskayga ilaa iyo masaajidka inaan faloo gaaban oo qurux badan oo magaalada iyo wadooyinkeeda iyo guryaheeda inaan idinla wadaago oo aan idin tuso isla socod wanaagsan nakeena marka hadda waxaan u soo baxay banaanka xafiiska banaankiisa joogaa safarkeena iyo socdaalkeena halkaan uu ka bilaabanaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo wadadan koreena laamigan koreena ilaa iyo dhinacaas waxaan aadeynaa xoosh ex control ilaa iyo tabeelahan aadeynaa insha Allah taala waa isla soconeynaa muuqaal qurux badan inuu ka soo baxaan rajeynaya insha Allah taala ha hilmaamin hana iska hilmaamin subscribe-ta like-ta iyo sidoo kale comment qurux badan inaan la wadaagto nakeena weli waxaa noo socdo oo aan bartanka kaga jirnaa faloogeennii nooga soo bilaaday xafiiskeenna aan ku tegaynay tabeelaha hadda waxaan maraynaa waddada u dhaxayso ex control iyo xoosh waddadan dheer waa waddada u dhaxayso xoosh iyo ex control aan hadda ku soconnaa insha Allah waxaan rajaynayaa meeshaan inuu ka soo bixi doono faloog aad u qurux badan mootadeeda mooto guduudeena waa tanaa mootada macallin muuse marka aan isla socod wanaagsan insha Allah hore u sii wadanaynaa waatahay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa faloogeennii xafiiska aan kaga soo baxnay ee aan ku tegaynay tabeelaha Sheekh Ibraahim ama tabeelaha deegaanka tabeelaha hadda waxaan qaadanaynaa shidaal waaye petrol meel kaalin petrol aan sii marnay shidaal aan ka sii qaadanaynaa kadibna socodkeena aan sii wadanaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo isla socod wacan marka asla soconno tahay ugu dambeyn waxaan soo gaarnay meeshii aan rabnay in aan soo gaarno waa masaajidkan aad aragtaan masjidun nuureen masaajidkan aan maanta khudbo ku leenahay marka waxaan rajaynayaa rixladan ama intiina la soo socotay oo naga soo raacday xafiiskeena ilaa iyo halkaan nala timid waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin weli barnaamijka faanoola fargama qodna waxbaa noo haray halkan kuma kala tagayno weli waa soo soconaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan imaanay bashishinkeeni iyo meeshii aan rabnay inaan imaano waa imaanay salaam waayahay hadda waxaan ku suganahay
maktabka masjidka An-Nuurayn deegaanku waa tabeelaha maasha Allah waa ujeedin si fiican la ii soo dhaweeyay maanta booqashadeedii ugu horeysay ee Masjid An-Nuurayn ee deegaanka tabeelaha aan hadda ku suganahay masaajidka oo aan maanta khudbad aan ku leenahay insha Allah marka meeshan waxa ugu soo dhaweeyay akhi fillah saaxibi ta'al ya saaxibi sallim alayhi ya saaxibi meesha waxa ugu soo dhaweeyay oo igu yimid saaxiibkay Cabdiraxiin waa kana Sheikh Cabdiraxiin al-Ustaad Cabdiraxiin مع الموسى ستوسة ku daawana YouTube salaam xalleeda kelmateen mid iyo labo hay waxaan leenahay macluumaadka ku soo dhawaad Masjid An-Nuurayn waxa maanta ku soo dhaweynay inaad hawlihaagii dacwada masjidka aan nagala qayb qaadatid aad iyo aad mar walba waxa adiga iyo soo dhawaada marka insha Allah ta'ala wax badan inaad noo faa'iideyn doontid ayaan rajeynaa masaajidkan sidaan u jeedo aniga masaajidkan waa masaajid cusub waaye Masjid An-Nuurayn وعسوب يا مساعد كان ما شاء الله كل دي سيد الله دي ديكوريشن كي أنا والله عادي ويعجب كذي ما شاء الله وأنت سنة عملوا السنة يا سيد في السنة لا سنة أيوه السنة مسجد ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في الأسر وعرف عن والله إذا نلقى رجال عليه إن شاء الله ما أنتوا إذا اللي تجوا هدي إلى هذا ده رمضان مبارك إن شاء الله رمضان مبارك هي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبب لدخول البركات من الأرض والسماوات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عباد الله نحن في شهر الحرية نحن في شهر السعادة القلبية وهو متعة الأبرار ومدرسة الأحرار إنه شهر رمضان فإن رمضان فرصة للتحرر من أخبار الذنوب بالتوبة إلى علام الغيوب والمحروم من حرم التوبة في شهر المغفرة قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورمضان فرصة للتحرر من إسلام العبيد إلى سنة رب العبيد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذه الآية جاءت بين آيات الصيام في هذا إيمانا إلى أن الصائم مرجو الإجابة وأن شهر رمضان مرجو دعوته قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر عباد الله رمضان فرصة لتحرير الأرواح فإنه الشهر الذي نزل فيه القرآن لتحرر الإنسان من سجن الظلام
الضلالة إلى نور اليقين والهداية. قال صلى الله عليه وسلم: قال جل وعلا في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ورمضان فرصة لتحرير النفس من سجن الجسد إلى رمضان الروح، ومن مراقبة الخلق إلى مراقبة الخالق. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى في حديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. ورمضان فرصة للتحرر من شر النفس الأمارة بالسوء والكتاب من أثرها. قال جل وعلا في كتابه الحكيم: فلا اقتحم العقبة. قال المفسرون: هذا مثل ضرب الله لمجاهدة النفس. ورمضان فرصة لتحرير القلب من أغلال الحقد والحسد والغضب والانتقام. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح إذا أصبح أحدكم يوما سائلا فلا يرفض ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. عباد الله، رمضان فرصة للتحرر من ذل المعصية إلى عز التقوى. قال جل وعلا في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون. قال بعض السلف: ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. ورمضان فرصة لتحرير العقل من التفكير المادي الآني ومن الطمع والبخل إلى العطاء والبذل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان البخيل محبوسا عن الإحسان فهو ضيق الصدر، كلما أراد أن يتصدق منعه فقره فبقي قلبه في سجنه، والمتصدق كلما تصدق يجرح قلبه. عباد الله أيها الصائمون، رمضان فرصة للتحرر من إدمان التوافي والفضول وترك ما لا يعني. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نختار أحد. ورمضان فرصة للتحرر من سجون الشهوات المحرمة، فإن الصوم يعين على كسر أغلالها وكبح دمائها وإطفاء نيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وليس المقصود من الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يدعه من تطيع النفس الأمارة والانتصار عليها والتخلص من ضدها. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن القيم رحمه الله: الحر المحب هو الذي قال شهوته ونفسه وملكها فانقادت معه وذلت له ودخلت تحت حكمه. عباد الله أيها الصائمون المسلمون، كثير من فتوحات المسلمين كانت في رمضان، وذلك أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر وما بعده أيسر منه. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. عباد الله أيها الصائمون، رمضان فرصة للتحرر من عقد الشيطان ووسوسته للإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
ugu dambeyn waxaan imaanay xafiiskeenii annagoo ka imaanay meeshii aan saakay aan aadnay oo ahayd tabeelaha deegaanka tabeelaha khudbadeennii waa soo dhammaysanay wacdigeennii iyo waanadeennii waa soo dhammaysanay waxaa noo dhiman oo keliya inaan aniga iyo tiimka halkan aan iska macsalaameeno tiim macalin muuse waxaan rabaa inaan idin idhaahdo taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan rajaynayaa inaad ku wada raaxaysateen ka wada bogateen indhihiina iyo soonka idin hayayna xoogaa yar aad kaga yara nasateen ayaan rajaynayaa kiliibkan ama muuqaalkeena ee quruxda badan leh ee aan ugu talagalay maanta oo jimco ah muuqaalada noocan oo kale haddii aad doontaan inaan soo badiyane commentiga maxaa inoo ballanna hadal wanaagsan hadal qiimo leh maxaa yeelay alkalimatu tayiba sadaqa kelmada wanaagsan waa sadaqo marka wixii waana ah tala ah warbixin ah iyo wax walbo waxaad nagula wadaagi kartaan qaybta commentiga muuqaalkan muuqaalka xigta intaaynu ku kulmeyno waa anigoo macal muuse oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu